أهلا وسهلا صاحبيال haddii aan la idmo waxaan isla eegaynaa arday baan soo weydiiyey saddexdan eray farqiga u dhexeeya oo accounting iyo accountancy iyo accountancy marka waa ereyada essential termska ah waa ereyada muhiimka u ah ama asaaska u ah accountingka marka saddexdan eray inta badan ardaydu isku khaldaan ereyga koowaad waxaa loo yaqaanaa accounting waa nidaamkii xisaabaadka la marinayay ereyga labaadna waxaa loo yaqaanaa accountancy waa ciddii xisaabinaysay xisaabta waa ciddii record gareynaysay oo qofkii xisaabiye ahaa ereyga saddexaadna waxaa loo yaqaanaa accountancy waxaa la dhahaa waa cilmigii ama waa daraasadii accountingka la baranayay waa facultyga la baranayay marka very simple essential terms of accounting waa ereyada asaasiga inta badan ardayga accountingka loogu dhigo chapterka koowaad waa accounting waxaa loola jeedaa waa processka waa nidaamkii la marayay accountingka haddii wax la record gareyn lahaa wax la qori lahaa oo dhacdooyinka ganacsiga la qori lahaa haddii presenting lagu sameyn lahaa lasoo jeedin lahaa financial information warbixinada xisaabadeed ama maaliyadeed simple si yaroo fududna accounting marka la qeexayo waxa lagu qeexaa is the language waa luqadda isticmaali of every business luqadda uu ku hadlo ama uu fahmo ganacsi walba ayaa loo yaqaanaa accounting marka accountancy like wuu ka duwanaanaya accountancy waa qofkii qabanayay shaqadan waa xisaabiye accountancy marka wuxuu noqonayaa professional person buu noqonayaa qofkii xirfadan ama aqoontan lahaa performance ka soo qabanaya accounting task shaqooyinka dailiga iyo accountingka ah ee ganacsiga ka dhex dhaca okay laakiin haddii noqoto accountancy waxay noqonaysaa waa cilmigii ama waa daraasadii ama waa aqoontii la baranayay marka waa studygii waa cilmigii la baranayay waa facultygii la daraasadeynayay oo la baranayay ama professionka xirfadii la baranayay laga baranaya accountingka marka saddexdeeda ardaydu isku khaldaan waa erey inta badan very mistake badan laga sameeyo oo isku dhow accounting waa processka ama nidaamkii la qabanayay xisaabaadka haddii wax la kordhin lahaa haddii xogta xisaabaadka maaliyadda lasoo jeedin lahaa simple sida fududna waxaa lagu qeexaya waa luqadda isticmaalaya ganacsi walba waa luqadda uu fahmo ganacsi walba laakiin accountancygu waa qofkii ficilka qabanaya oo xisaabiye waa professional person waa qofkii xirfadan lahaa who performance kasoo qabanaya accounting task shaqooyinka maalinlaha shirkada ka dhex dhaca laakiin accountancygu saan hadda wuxuu ku yiri accountancy baan bartaa macnaha wuxuu la jeedaa facultygan aan bartaa accounting ayaan bartaa marka accountancygu wuxuu noqonayaa waa culumtii la daraasadeynayay ama cilmigii la baranayay ayaa wuxuu noqonayaa accountancy noqonaya aad iyo aad ba mahadsantihiin saaxiibayaal thank you very much